wasiir waxaa jirto arday badan oo maanta dhibaato ha noqoto dhanka iskuulka dhanka jaamacadda arday waxaa jirto oo xagga financiga ka dhiban yihiin inay waalidkooda ka bixiyaan oo kale ardayga waxbarashadii hami ayuu u leeyahay haddana markuu meel dhexe soo gaaro ma awoodo waalidkii inuu ka bixiyo asagana ardayga ma awoodo inuu iska bixiyo dowladdana mar waliba waxay dhahdaa anaga ardayda oo tabar daran waalidkooda aan waxba u awoodin waan ka caqabanaynaa waa saacidaynaa haddana lama arko ayagoo saacidaya sidaas ay tahay dhib waliba uu soo maro ardayga aniga xaaladahaas waa soo maray alxamdulilah waana ka soo gudbay haddana arday dhibkaas wax ku soo bartay maanta niyad iyo hani uu lahaa inuu wax barto markuu wax barto haddana uu shaqo u raadiyo oo hani uu lahaa inuu reerkiisa maanta wax u qabto waddankiisa wax u qabto dadkiisa wax u qabto niyadiisa ay ku jirtay haddana markii waxbarashadii uu dhameeyay ardayga haddana wixii uu bartay oo ku shaqeeyo isdhahayo shaqo kuma helayo dadkana waxay dhahayaan waxbarashada maxaa ka faa'iida tusaale haddaan waddanka ka tagno aan shaqo raadino waddamada shisheeye aan tagno markaa shahaadooyinka waxbarashada Soomaaliya aala tagtid oo kale maxaa lagu dhahayaa tayadaadu weyn maxaa sabab midaas inay iga jawaabtid arwa